طبعا بوغا جهد بدن ayaa galay iyo dadaal badan baa lagu sameeyay wasaaradda waxbarashada wasiirkii Abshir Yusuf iyo wasiir Abdullaahi waxay ku soo lifaaqeen qoraal ah buugan inuu yahay buug magaranaysa buugtan form 1 ilaa form 4 la qaadan karo wasaaradana ay ogolaatay in iskuulada laga dhigo marka juhdigaas fara badan ayaa soo galay sidoo kale macallimiin aqoon u leh xisaabta ayaa juhdi badan ku bixiyay oo iyagana muraajaciyay iyagana u mahad celinayaan jazakumullahu khayran sidoo kale magaranaysa ardayda buugan qortay iyagana waxay leeyihiin sharaf iyo qiimo ay leeyihiin ummadda dhexdeeda marka aan leen dhamaantood jazakumullahu khayran buugtan waxay ka kooban yihiin waa 4 buug xisaabta ee dugsiga sare waa form 1 ilaa form 4 waaye buugtaas waxay ka kooban yihiin labada teeram ee sanad dugsiyeedka waxayna ay base u ah buugtan syllabuska Puntland waxa ka qayb qaatay ilaa 38 arday waxaan filayaa maanta kaligeeba ka jooga kulli waxay jiraaniin boosaas waxa laga yaabaa maanta in wax yar joogaaniin kulli waxay jiraaniin daafaha kala duwan ee Puntland gobolada Puntland marka oo macallimiin ay ka yihiin waan ilaahay mahadi waan mariyay jaamacad soo saaray British University waxa lagu fahmo buugatan waxaan rajaynaynaa inay wasaaradda waxbarashada Puntland ay manhaj ka dhigato anagu markaanu ahayn ardayda dugsiga sare markaan dhigan jirnay dhibaatooyinka ugu weyn naga haysto waxay ahayd hal buug ay ku urursan yihiin buugatan maan heli jirin waxaan filayaa ardayda waqtigan joogta hadda in ay maanta ka nasiib badan yihiin ardayda hore oo ay maanta haystaan hal buug oo ay wax badan ka heli karaan ardaygu isaga wax isbari karaba marka taasina waa guul weyn arrin aad u cajiib badan bay arrintaas ahayd wax adag bayna ila ahayd aniga oo riyo ah oo maxay ah maanta ardada buugaagta ay dhigaan markii waxa weeyaan ay tifaacdaan ka bacdi in loo ansixin doono arrinta inay u baahan tahay process aad u fiican laakiin dhiirigelinta ay la yimaadeen dadaalka ay bixiyeen juhdiga ay iyagu bixiyeen iyo jaamacadood juhdi kale ay sii bixisay inay wasaaradda ka sii ansixiso arrintaas farxad weyn ah oo heer ah oo aan dhihi karaa jaamacaddu waxa weeyaan hambaliyay mudan tahay mas'uulka waxa weeyaan jaamacadda iyo gudoomiyaha ugu horeeya intaba hambaliyaan leenahay ardadii juhdiga bixisay oo ay muujiyeen marka in maanta waxa weeyaan marka iskuulada ardada wax baranaysa in ay ku kordhiyaan يعني waxaan ku guuleystay runtii de waxa muuqata in ay ka qayb qaadanayaan horumarinta iyo hagaajinta tayada waxbarashada ardada yani Puntland dabcan waxaan rajayn doonaa dabcan buugta in laga faa'iideysan doono ayna ka faa'iideysan doonaan dhammaan sekedariyada yani Puntland sidoo kale waxa kaloo dabka soo saaran oo ila soo socda ardayda sanadkan qalin jabinaysa iyana waxay soo bandhigi doonaan maadada loo yaqaan physics-ka form 1 ilaa form 4 إن شاء الله نحن رجين دونا لفتقول إن لقى فايدة سندونا رنتي آديات بنقوم مهد علني طبعا مامل كجامعة دا ولفتقول جهدي وين كل بحيي إن الهير كله سو جارسيو هو هاي أرض جامعة بدعس إنه حقبته وحي عدين إسا إن جامعة تاي هوي هالدور كه جامين تا قرياش سياسيين تمان تي بريتبه هو كان يروح لفدور النقد دونا وسارد وحبر الشذا أرض جامعة دا أرض إسكولا دا بوتلان waxa kaliya buugan ku caawin karnaa waxa way ka ardayahan iyo ka aqooyahanaanba inaan buugan akhrino baahino geeyno dugsiyada khusayso secondary level-ka si wuxuu ahaa ugu noqoto tub toosan ay raacaan si ardada xilliga dhiganaysa iyaguna ay u noqoto wuxuu ahaa arday jiil fiican la soo saaray lagu carabiyay manhajkan ay diyaariyeen arday jaamacadda badacad ka qalin jabisay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxbarashadu waa baasaboorka mustaqbalka waxaa ku leeystay waxbarashada heela kuwa maanta u diyaar garoobay ayaa biri ku aflaxa waxbarashada waxani waa waqti juhdi la soo galiyay shaqo fiican oo muddo socotay oo ardadu aqoontay barteen ay ku practice gareynayeen oo ah ardaygu isagoo dhiganaya jaamacaddii ayay haddana macallimiin ahaayeen iyagoo markay macallimiin ahaayeen waxay arkeen caqabadaha badan ee ardada haysata iyo macallimiinta baa haysata fikirku halkaas uu ka yimid jazakumullahu khayr markaas waxay yiraahdeen baahi baa jirta baahida waa in la buuxiyaa baahida markay soo bandhigeenna ay u soo gudbiyeen kulliyadda waxbarashada ustaadkii marka jazakumullahu khayran ka ah camiidka ustaad cabdisalaam maxaa cusmaan oo hadda naga maqan iyo ustaad maxamed Soomaali ayaa marka u ahaa supervisor
juhdi badan bay geliyeen intaa laguma daynina haddana waxaa dhacday in dib loo qiimeeyo oo yaa qiimeynaya dad ka baxsan jaamacadda macallimiinta xisaabta aad ugu fiican ayaa loo diray ujeeddadu marka maxay tahay waxaa muhiima ardaygu inuusan baranin waxa theory keliya wixii waa inuu wax qori karaa waa inuu bulshadiisa anfici karaa waa inuu berri ka maalin haddana wax ku sii dari karaa qoraal kale oo hore u sii socon karaa waa wax u baahan in lagu dhiirigeliyo intii shaqadan qabatay ay ugu horeeyaan dhalinyaradaas ardayda iyagoo ah ku fakeray inay dalka wax ku soo kordhiyaan dalku maalinba heer buu soo marayay maanta waxaan aragnaa inaynu maskaxda dadku korayso in laga soo kabanayo 30 sano ee burburka ahaa oo dadka ardayda ah ee wax bartay ku fakerayaan inay cilmigooda kor u qaadaan inay ardayda ka dambaysa ee wax baranaysa ay uga tagaaneen manaahij ay berri ka maalin raacaan oo silibisa oo san qofku ku jahwareerin ardagay in uu garan waayo meel wax ka bilaabo laakiin hadda uu leeyahay wuxuu raaco meel uu hiigsado uu isagu naftiisu markaa uu ku dari karo fikrad ahaan wax uu hayo runtii waxaan u mahad celinayaa intii fikirka keentay intii ku taageertay oo ugu horeyso wasaaradda waxbarashadu wasiiradii hore iyo wasiirada hadda jooga sidoo kale jaamacadda Badda Cas oo noqotay jaamacaddii ugu horeysay oo hawshaas arday iyada ka baxday ay hindisto aad baan ugu mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad